السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa ardayda qiimaha badan, waalidiintooda sharafta badan, asxaabtayada iyo bulshada sida tooska ah noogu xidhan. Waa xalqadeennii labaad iyo barnaamijkeennii maxaad akhriday oo alaaba aad kala socotaan Aqoonsi Online Academy. barnaamijkan ugu talagalay inaan ku hoga tusaaleyno kuna tilmaano ardaydeena waalidkooda iyo macallimiinteennaba si ay u noqon lahaayeen ilayskii iftiimin lahaa horusocodka iyo horumarka bulshadeena, kuwaas beddelkoodana sheeqin lahaa aqoon darrada iyo caqabadaha bulshadeena. waxaynu ognahay isu diyaarinta iyo babacdhigista hawsha intaasi leeg ee baaxadda intaasi leeg leh inay culayskeeda leedahay iyadoo ay barbar socdaan caqabadihii ardayga kaga yiminaya dhanka waxbarashada iyo casharada iyo dugsiga, sidoo kale ay barbar socdaan caqabadihii ardayga kaga yiminaya dhanka nolosha iyo qoyska, sidoo kale ay jiraan caqabado ardayga u gaara mararka qaar iman kara oo ardayga dareemadiisa saameyn ku leh loo yaqaano markaa emotional challenges. haddaba su-aasha isweydiinta le waxa weeye sidee bay ardaydeenu u xamili karaan uguna dul qaadan karaan culaysyada kala duwan ee kasoo waajahaya dhanka waajibaadkooda iyo shaqada sugaysa, dhanka nolosha iyo qoyska iyo dhanka dareemadooda iyo xaaladaha iyaga u gaarkaaba. maxaynu ardaydeena xirfad iyo xeelad ah aynu bari karnaa si ay culayskaasi ay u qaadaan una yeeshaan samir iyo dulqaad ay culayskaasi ku xamilaan. waxaynu doonaynaa inaynu tilmaano dhowr qodob oo laga maarmaan ah amaba noqon kara oo wax ka tari kara xamilista culayska ardayda soo waajaha inta ay ku jiraan hayaanka waxbarasho. waxaynu marka koowaad jecel lahay inaanu idinla wadaagno in uu waalidku ardayga u noqdo tusaale uu ku daydo oo uu ka helo waayo aragnimo iyo khibrad iyo xeelad uu ku waajaho kagana hortago caqabadaha kala duwan ee kaga imanaya deegaanka ardayda iskuulka iyo macallimiinta. ardaygeenu wuxuu u baahan yahay mar walba inuu aqoon iyo xirfad iyo waayo aragnimo gaara ka dhaxlo waalidkii oo ku salaysan sida loo xaliyo dhibaatooyinka looguna dulqaato culayska oo mar walba uu guriga tababar ka haysto marka ardayga. waxaynu sidoo kale u baahannahay ama lagama maarmaana ardaydeena inaynu uga sheekayno oo aynu la wadaagno sheekooyinka culaysyada iyo caqabadaha aadka u adag ee waalidka soo maray amaba uu waajaho inta uu ardaygeenu caqliga iyo garaadka ku filan uu leeyahay ee uu u baahan yahay inuu helo sheekooyinkaa si uu uga dhaxlo xirfad iyo xeelad. macallimiinta iyaguna sidoo kale ardayda la wadaagi karaan sheekooyin iyo dhacdooyin ku saabsan sida loo xaliyo dhibaatooyinka loogana gudbo caqabadaha looguna dulqaato ee loo xamilo culayska. iskuulladu sidoo kale ama dugsiyadu iyaguna waxa ay diyaarin karaan barnaamijyo waxay ardayda u sahli karaan inay ardaydu soo bandhigaan dareemadooda oo ay ardaydu helaan tababaro ku saabsan sidee caqabadaha loo waajahaa, sidee loogu dulqaataa culayska. ardaydana sidoo kale lagu tababaro looguna gogol xaadho inay u diyaarsanaadaan xamilista iyo ka hortagga iyo dulqaadashada culayska. haddaba si aynu u fahanno muhiimadda qodobadaasi aynu soo sheegnay, waxaan jecelahay inaan idinla wadaago tusaale kaasi oo arday, macallin iyo waalid ahaanba ina anfacaya aynu ka qaadan karno casharo iyo xeelado iyo xirfado aynu ku waajahno caqabadaha. waxaan doonaya inaan idinla wadaago gabadh la odhan jiray Sonia Carson oo lahayd 2 wiil oo la odhan jiray Ben Carson iyo Curtis Carson. Sonia Carson labadeeda inan iyo iyada iyo aabahood iyagoo nolol iskaga jira caadi ah oo iska nool
oo xaaladoodu ay iska caadi tahay waxaa soo waajahay caqabado kala duwan oo kala dambeeya marka koowaad waxay ahaayeen dad madow oo ku nool waddanka Mareykanka waxa dhacday in waqtiyada kamid ah ay isku dhacaan gabadhii iyo ninkii gurigu aabahood uu ka dhaqaajiyo oo ay kala tagaan oo ay saa ku kala socdaan waxa sidoo kale dhacday in Sonia Carson inamadeedii mid kamid ah Curtis inankii weynaa iskuulkii laga soo eriyo oo gradekiisa oo hooseeyay aawadeed la yiraahdo inankani uma gudbi karo college wuxuu u baahan yahay inuu vocational schools iyo iskuulada farsamada iyo waxa uu bilaabo waxa dhacday sidoo kale inay ardayda labadeeda inanay dhashay ay xagga caruurta iyo ardayda dugsiga ay kaga iman jirtay bullying ama takoor sidoo kale xagga macallimiintuna iyaguna ardaydan ay xilligan iyaguna ka takoori jireen waxa sidoo kale jirtay caqabad ah in noloshooda markii hore iskaga adkayd oo xaalad dhaqaale oo aad u liidata ay ku noolaayeen waxa sidoo kale dhacaysay inay labada inan iyaguna ay xagga waxbarashada aad ugu liiteen oo aanu academic performance-gooda aanu fiicnayn waxa soo caqabada u jiray Sonia Carson labadeedii inan waxay u noqotay tusaale cad waxay mar walba u noqotay dhiirigelin waxa sidoo kale Sonia Carson iyada gaar u ahaa xaalad nafsiyan ah oo waxa soo waajahay xanuun dhanka maskaxda laakiin waxay mar walba qaadatay oo mar walba ay ku dadaali jirtay inaanay marnaba ardaydeeda labadeeda inanay dhashay aanay marnaba culayskan iyo caqabadaha soo waajahay aanay marnaba nolosha aanay waxay doonayeen aanay ka hor istaagin waxay guntiga u adkaysatay oo ay ku dadaashay inay inamadeedu ay noqdaan ama ay gaaraan halka ay doonayaan inay gaaraan waxay samaysay inay mar walba halku dhig ay ku dhiirigelinayso inamadooda ay isticmaasho you can do it mar walba ay ku taahdo waad qaban kartaan waxaad doonaysaan waad qaban kartaan darajo fiican waad keeni kartaan nolol fiican way ku noolaan karnaa meeshaad doonaysaan waad gaari kartaan waxaad mustaqbalka doonaysaan inaad noqoto waad gaari kartaa waxay isku dayday wax badan oo caruurteeda ama inamadeeda noloshooda saameyn ku lahaan lahaa oo iyada u gaar ahaa inay qariso sida xanuunka maskaxda ka soo waajay inay ka qariso caruurteeda si aanay caruurta ugu iman niyad jab waxay isku dayday wax badan oo xitaa ahayd inay markii odayga iyo islaantu ay kala tageen inay ka qariso oo ay ku tahdo aabba weydii soo noqonaya mar walba weydii imanaya oo aanay marnaba caruurtii wax problem aanay u abuurin waxay sidoo kale uga sheekeyn jirtay sheekooyin kala duwan waxay mar walba ay u ahayd tusaale cad oo ay ku daydaan aakhirkii markii dambe inamadii mid kamid ah oo buugga qoray oo la yiraahdo Ben Carson wuxuu noqday neurosurgeon buu noqday in dhakhtar buu noqday oo guulo waaweyn ka gaadhay hamigiisa uu rumoobay sidoo kale uu horumaray heerkiisa waxbarasho ee aqooneed halkii ay doonayeen ay gaareen marka sheekadaas waxay noogu filan tahay tusaale cad bay noo tahay waalid iyo macallimiin iyo ardayba waxaan u baahanahay mar walba inaynu sida gabadhaas oo kale aynu noqono tusaale cad mar walba aynu caqabadaha iyo mushkiladaha soo waajah aynu xalino marka barnaamijkeena maanta xalqadiisa labaad halkaas ku soo gabagabeynaa waxaan rajeynayaa inaynu ka faa'iidnay xirfad iyo xeelad sidoo kalena aynu diyaar u nahay inaynu culayska iyo caqabadaha xamilo una adkaysano mar walbana aynu la nimaadno xeeladii iyo tabtii aynu uga gudbi lahayn uguna dulqaadan lahayn xeeladda caqabadaha aynu soo waajah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته